sheekh waxaan ku weydiinayaa waxaan ahay nin qaad ka shaqeeya wax alla waxaan haysto qaadkaasi ka soo jeedaan dad baa afuriya hawshaas ka war su'aasheedu waa taas qaadku asal ahaan sharciga waa ku xaaraan maxaa yeelay wuxuu u dhimayaa waxyaabaha daruuriyatul khamsa loo yaqaano ee diinteennu ay ilaaliso caqliga iyo nafta iyo maalka iyo nasliga iyo taranka intaba qaadku waxbuu yeelayaa xukun ahaan waa xaaraan xoolaha laga tabcado laakiin masaladaadu marka shakhsi mucayana laga hadlayo waxay ku xidhan tahay su-aashii hore meeshii uu sheikhu mariyey xukun ahaan haddaad taqaanay qaadku inuu xaaraan yahay kadibna sidaa adigu aada ugu dhiiratay oo xoolo iyo kasab aada ka samaysay kasabkaasi wuxuu noqonayaa kasab aan bannaanayn buu noqonayaa mar haddaanu bannaanaynna dee sadaqo kuu geli maayo haddiise xukun ahaan aadan ogeyn oo jaahil aad ka ahayd waxaa hore aada kasbatay aada jaahil aad ka ahayd wuxuu marayaa meeshaa hore ee muxuu ahaa sheikhu uu mariyey hadda wixii ka dambeeyana xukunku markuu kuu caddaaday waxaa waajib kugu ah inaad faraha aada kala baxdo haddii allah awooda la ogolaado xukunkii sharcigaa mar hadduu kuu caddaaday wixii dambe ee yacni qaad ku saabsanna aadan gacan la gelin inaas baan insha allahu tacaala ku gaabinaya idaafa wixii ugu idaafeynaya sheekhu waa sida sheekhu uu sheegay hal qodob baan ku dari lahaa adigu horta ajir ka heli maysid waa saa sheekhu sheegay maxaa yeele nabigu nasan sida uu sheegay xadiidkiisu waxa weeyaan xoolo xaaraanna ruuxii baxsaday ajir ka heli maayo dembiguna isagu saaran yahay waa haddaad garanaysay qaadku inuu xaaraan yahay sidaana ku kasbatay waxaa timid ma iska daayaa sheekh marba haddaana ajir ka helayn afurintan iyo waxaanaan bixinayo ma iska daaya jawaabtu waa maya dadka afuri xoolahana bixi ajirna ka heli mayso say isu qabanaysaa way ninkan ajir baa laga hadlayaa horta culays baa saaran culayska saaran baa u baahan in xal loo helo laga dejiyo marna ajir baad raadinaysaa iyo sad baad raadinaysaa marna culaysku saaran sidii loo xallin lahaa bay taaganta adigoo kale xoolahaad ajir ku raadin lahayd maaha laakiin sheekh see wax u furdaamiyaa xoolahan seen ugu taliyaa markay timaado baa waxay tahay xoolahan waxaa iska leh masaalixda iyo danaha guud baa iska leh danaha guud yaa ka mida masaakiintaa ka mida bixi marka sii waxa kaa afuri kara xoolaha ku afuri kara waa masaakiin dadka aad ku afurinaysa hadday masaakiin yihiin waa dadkii lahaa xoolahaas way ku afuri karaan hadday yihiin dad ladan aada afurinaysana waxaad tidhaahdaa war xooluhu qaad bay ka soo jeedaan isaga taga meesha kuma afuri karaan kuwaas laanna dadkii loogu talagalay maaha marka meeshii laguba bixin lahaa wey ruuxa haddiiba uu xoolaha bixinayo meesha lagu bixin lahaa saas daraaddeed su-aal baa laysu wadhe waxaa la yidhahdaa ruux xoolaha kasabka xaaraantaa ku yimid ribada ku yimid qaadka ku yimid sigaarka ka soo baxay haddii seke laga bixinayo ruuxaa sekada ma laga qaadaya mise qaaraan maalan ummadda loogu adeegayo madrasooyin lagu dhisay istaallo lagu dhisay qaaraan ma laga raadina haa adeer qaaraanka ka soo qaada sekada hadduu bixinayana ka soo qaada inta kalena hadduu bixinayo ka soo qaada hadduu qayb haysto qayb bixinayo qaybtuu bixinaya diyaarka leeyahay laga soo qaado maxaa yeelay meeshii loogu talagalay baaba halkaa wallahu aclam